magaalada Mooyaale ee gobolka Daawaya waxaa laga wadaa dayactirka jidadka xaafadaha magaalada Mooyaale taasoo ay gacanta ku hayaan maamulka dawladda hoose ee degmada Mooyaale waxaana waqti xaadirkan laga wadaa caradhigida wajiga koobaad iyo baahinta carrada taasoo la rajeynayo inay wax badan ka bedeli doonto dhanka isu socodka gaadiidka iyo bulshada rayidka ah ee ku dhaqan magaaladani. jidadkan xaafadaha magaalada Mooyaale ee dayactirka laga bilaabay ayaa hadda ka hor caqabad weyn ku ahaan jiray dhanka isu socodka gaadiidka iyo kan bulshadaba isla markaasina guyi jiray waqtiyada qaar si haddaba taas looga jawaabo baahida shacabka magaalada Mooyaale ku dhaqan ayaa la bilaabay dayactirka jidadkan laga wado xaafadaha magaalada Mooyaale oo dayactirkoodu bilo fiican marayo isla markaasina ka kooban 4 xaafadood. qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Mooyaale oo warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV la hadlay ayaa bogaadiyay sida ay ugu faraxsan yihiin dayactirkan jidka xaafadaha magaalada Mooyaale laga wado waxayna sheegeen in hadda ka hor caqabad weyn ku ahaan jiray dhanka isu socodka gaadiidka isla markaasina burbur xooggan ka muuqday waqtiyadii hore. waxaan ka hadlayaa dhibaatadii waa hore jirtay iyo dhibkii laga baxay baan ka hadli hadda afar bilood dadkii xilka qabtay waxay muujiyeen isbedel muuqaal leh ay uu shacabku ku riyaaqo oo weliba u duceeyo oo isu socodkiiba caadi noqday 2 guri oo jiraana aan dab kala qaadan jirin ay jidkii kala go'ay magaaladiiba sideedaba baabaaday magaaladii bilcideeda iyo wadooyinkii quruxdooda iyo taas banaanka u soo baxeen qofkii waayeelka ahaa meel marmarkuu waayay gabadha xaamalada ahayd meel ay martay markay waysay cunugii yaraa meel uu marmarkuu waayay ay magaaladii ay kala go'day ay degmadiiba kala go'day hadda meel kastaba har iyo habeen waayeelkii indhalaa hataa waa iska bara wadadii laami baa laga dhigay ma sha Allah aad iyo aad run ahaantii markor wado ma lahayn run ahaantii wadooyinku waa wado iska jabsan oo roob ku da'o marka hadda alxamdulillah 4 bilood gudaheeda waxaanu aragnay in wadooyinkii dhanba la xaqayo oo si fiican jay lagu shubay la xaqay oo la balaariyay ayaa runtii waa aad baan ugu farxnaa. waa tahay ahmiyada intee leeg bay leedahay jidkan hadda dayactirka laga wado wallahi ahmid aad iyo aad u weyn waayo waxaan saaranahay horta border meeshan Kenya iyo Ethiopia baawta ka soo gudubto bajaaja had soo baxay soo baahida aad bay u balaarantahay inkastoo aanu rabnay in nolol saar runtii lahmi ama baaxalki ilaahay haduu yiraahdo laakiin dawladda hoose aad iyo aad bay u dadaalaysaa aad iyo aad run ahaantii wallahi waa kala dheer ya meel jirtay meel aan jirin waa meesha waa meel jirto horma fiican bay hayran waa dad la rabo in gacan la siiyo ya xagga kililka run ahaantii inay gacan siiyaan taragtooyinka baawurta qashinka lagu rago taasaan ka cusubin ilaahay haduu yiraahdo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. dhinaca kale gudoomiyaha maamulka degmada Mooyaale mudane Bishaar Aadan Kiyaato warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV ugu waramay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee waxqabadka dawladda hoose iyo sidoo kale dayactirka jidkan laga wado magaalada isagoona sheegay in bulshadu dhibaato weyn ku qabeen jidka oo burbur xoogani soo gaadhay wadooyinka magaalada maadaama magaaladu magaalo weyn ay tahay wadooyin badanna ay dhex maraan wadooyinkaasna kulley waa feeska saddexaad ee hadda ay ku jiraan feeska saddexaad ee wada xaadida ama wada sameynta ay ku jiraan marka feeska koowaad ilaa 3 xaafadood bay marka wadadoodii xaadeen oo ay marka ay meel mariyeen feeska labaadna ugu yaraan 4 xaafadood bay marka ka howlgaleen wadooyinka mara kuwa toos u dhaadhaca iyo kuwa sii gudbaba toos bay uga howlgaleen way xaadeen marka wax fiican ayaa marka halka ka jira feeska saddexaadna hadda toddobaadkan bay hadda ku jiraan feeskan saddexaadna waxay ka howlgalayeen 4 xaafadood bay ka howlgalayeen wadooyinka magaalada ka sii dhaadhaca iyo kuwa sii gudubka u socda marka hadda dhinaca wadooyinkana si fiican ayaa marka uga howlgaleen si fiicanna waxyaabo fiicanna way ka qabteen marka wadooyinkana marka labada dhinacna biyo mareen baa loo sameeyay
siduu biyaha ay u maraan oo ay waddada u gooynin yaa loo sameeyey marka dhinaca nadaafadda iyo dhinaca waddooyinkaba si fiican ayay uga howlgaleen dowladda hoose 6 bilood ee hadda ay joogeen isbeddelka lagu sameeyey annaguna kolley garabkoodaan taagannahay wixii ay caawin u baahan yihiin ama taageero u baahan yihiin degmahaanna waan garab taagannahay ayaguna dad isxilqaamay oo mas-uuliyaddooda dareensan oo dhibaatada magaalada ka jirtana dareensan oo fahansan bay ahayeen bulshadoodana dad ka damqada ayay noqdeen marka 6 bilood dadkii joogay marka guud ahaan kolley magaalada horumar fiican baa ka socda dhinaca waddooyinka hadday noqoto dhinaca nadaafadda hadday noqoto dhinaca is-abaabulka bulshada hadday noqoto dhan kastaba Bashiir Cabbaas Cali warbaahinta deegaanka Soomaalida TV Mooyaale